siyaaro rasmi ah inuu prime ministerkii noo yimid xasan cali khayre ummadan Soomaalida ee dhulkan ku nool aad bay farxad ugu tahay inay la kulmaan prime ministerkooda wuxuu ku yimid invitation rasmi ah ku yimid wuxuuna la kulmayaa saacadaha soo socda madaxweynaha Uhuru Kenyatta taasina waxay astaan u tahay xiriirka weyn ee si xoogeysanaya maalinta ka dambaysa ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya wadan aad iyo aad muhiim ugu ah siyaasadeena arrimaha dibadda weeye asbaabo gaar ah oo jira dartiis asbaabaha waxaa kamid ah markii ugu horeysay xuduud inaan la leenahay xuduudkaasna inuu tension ka jiro oo security issue arrimo ku saabsan security-ga shabaab inay maaragtay meelahaas ka dagaal gasho oo ama Kenya dhibaatayso ama anaka dhibaatayso ama shacabka Soomaaliyeed ee beeraleyda ama xoololeyda ay dhibaatayso tan labaad Kenya waxa ku nool dad badan oo Soomaali ah aad u xoogan oo ganacsata ah oo runtii ganacsi xoogan ee ka wada wadankan haddana waxa weeye Soomaali badan oo wadankan Kenyaati u dhalatay oo haddana siyaasadda meelo fiican uga jira waxa soo dhan waxay keenaysaa maaragtay xiriirkeenu inuu noqdo xiriir gaar ah oo muhiim ah oo xoogan inuu noqdo annakana waxa weeye inaan sii xoojino weeye shir baa ka socda hadda maanta iyo bariba oo JCC la dhaho shirkaasi marka waxaan rajaynaynaa in lagu soo qaadi doono qodobo badan amniga iyo lagu soo qaadi doono dhaqaalaha iyo maaragtay ganacsiga lagu soo qaadi doono waxaan rajaynaynaa Soomaaliya waxay ka mid noqotay ECOWAS ururkan ay ka mid noqotay in faa'iidooyinkooda in ay caanaamaasho faa'iidooyinkooda waxa kamid ah inay wadamada ku jiro dhan ay Soomaaliya waxay rabto geyn karto ay u dhoofin karayso ay ka tartami karayso oo lagu sameyn karaynin wax discrimination ah aan lagu sameyn karaynin marka Soomaaliduna waan ognahay inay aad ugu horeyso maaragtay ganacsiga marka waxaan rajaynaynaa inay fahmaan dadka Soomaalidu inay suuqyadaas oo dhan ay u furan yihiin tan iyo intii la galay ururkaas la galay inay suuqyadaas oo dhan u furan yihiin